بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني إن شاء الله تعالى إن حقيقة هذه قلبنا أين وناجنه وقلبنا نقضه مد إلهي سبحانه وتعالى وحي أبو ارتيقاتي وكوقا عمنش النبي صلى الله عليه وسلم قلبنا وحنقنا يا مركين وتقنه يوم القيامة إن إلهي سبحانه وتعالى ونوغ غرغارو هدي أين النقنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كوا الله تلماميو إسلام ماذا شيغانيا مالنتا يوم القيامة رميسان هدنا أنا هين ددك وناكسن مؤمنين تا اللو دي صفة قلبي قودا جرن في قلوبهم مرض قلبي قودا جرن ومحو جرن waxay ku qanci laayihiin manhajkii Allah subhanahu wa ta'ala soo diray soo dejiyay koonka u keenay hadafkii loo abuurtay oo dhan ayay inkirayaan waxa laga yaabaa afka inay ka sheeganayaan inay Ilaahay rumaysan yihiin laakiin waxa laga yaabaa in quluubtooda ayna u dejin Allah subhanahu wa ta'ala inay ku adeecaan marka qalbiga waad u jeedaan bakeriga waxa ku jira wax aad u madow waxaanu ka soo qiyaasaynaa qofka qalbigiisa aan rabin inuu ilaahay aayaadkiisa qaato wax kale ku qanacsan yahay waxa laga yaabaa salaadii Allah subhanahu wa ta'ala oo la aqimayo oo la adimayo inuu ciyaar ku ordayo inuu shaleemo ku jiro inuu hees dhageysanayo in uu islaam qoslayso ka qoslinaysa uu ag fadhiyo marka ilaahay aanu soo laabana subhanahu wa ta'ala qalbigeena aynu isku darno inaan nadiif ka dhigno si ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noogu gargaaro maxaa yeelay haddaynu qaadano ilaahay aayaadkiisa oo aynu ku qanacno manhajkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuu noo gargaaraya ilaahay wuu noo naxariisanaya marka insha Allah ta'ala qalbiga xumaanta jecel waa qalbiga xanta dadka waa qalbiga dambiga jecel waa qalbiga beenta ka dhigta inuu wax ku helo waa qalbiga ilaahay diidan inuu salaadiisa iyo soontiisa iyo khayraadkiisa u qaato waa qalbiga aan ku qanacsanayn manhajkii nabiga sallallahu alayhi wasallam saasuu u madoobaanaya hadduu marsaa u madoobaadana qiyaamana waxaa sugaysa cadaab aad u weyn marka aynu isku dayno qalbigeena inaan wanaajino oo islaamnimada aan sheeganayno dhab ay naga noqoto marka insha Allah qalbigaas waa qalbigii xumaa waxaan galaynaa qalbiga wanaagsan iyo sida uu egyahay qalbiga wanaagsan waxaynu u jeednay qalbigii madooba iyo sidii uu mirisaday laakiin qalbiga wanaagsan ee salaada marka la adimo aada ee masaajidka ku xiran ee Allahi ka baqa ee aan beenta aqoon ee Ilaahay aayaadkiisa isu dhiibay waa qalbi nadiif ah waa qalbi daacad ah waa qalbi Allahi ku xiran waa qalbi dhalaalaya waa qalbi maaragtay Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo dejiyay gartay qalbiga marka insha Allah ta'ala qofku wuxuu noqonayaa nadiif qalbigiisu Ilaahay maalinta uu u baahdo ee shidadu ay timaado sida maanta xanuunada ka jira maaragtay caalamka ilaahay hadduu bariyo ilaahay wuu u gargaaraya maxaa yeelay salaadii buu ku toosay khayraadkii buu ku toosay shaydaan kama qaalib noqon ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu isu dhiibay qalbigii wuxuu noqday marka qalbi nadiifa qalbi maaragtay ilaahay yaqaana qalbi ku qashuuca oo la yimaada Allah subhanahu wa ta'ala wixii uu talagalay marka ilaahay aan isu dhiibno war maanta qalbiyadeena aan isku dayno inaan nadiifino inaan ka dhigno wax nadiifsan oo cad maxaa yeelay xumaanta oo dhan hadaynu ka guurno oo wanaaga u guurno waxay noqonaysaa qalbigeena ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu u gargaaro oo noo naxariisto si ilaahay nooga badbaadiyo xumaanta maanta koonka ka jirta iyo imtixaanka ilaahay isu dhiiba laakiin markii imtixaanku u dhacay haddaad bilowdo inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala isu dhiibto ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka aqbali karaa ilaahay toobada uu ka aqbali karaa إلهي وكوناتين كرا ما أنت مركا امتحان بالينا تصير إنه إلهي سبحانه وتعالى يسلمنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.